wafdigan uu hogaaminayay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani isla markaana kormeerka ku mariyay deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer iyo deegaanada kale ee gobolada bari ee ka socota diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland ayaa si rasmi ah u soo gaadhay degmada Xaj Saalax oo ka tirsan gobolka Daarmareed. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ayaa halkaas waxa ku soo dhaweeyay shacab tiro badan isla markaana taageero mug iyo miisaan leh halkaas ku muujiyay. halkaas waxa ka hadlay madax dhaqameed kala duwaneed qaar ka mid ah musharaxiinta ka sharaxan degmada Xaj Saalax oo ku soo dhaweeyay degmadan. waxaanu idinku soo dhaweynaynaa niyad wanaagsan kalgacal iyo kuwa degmada Xaj Saalax oo dhamaanteed idiin heelan inay idin soo dhaweyso gudoomiyaheennii ama madaxweynaheenni mustaqbalka iyo wafdiga ballaaran uu hogaaminayo laga soo qayb galay inuu indhaindhayn inoogu yimaado oo inagu dhiiri geliyo kaadhka aynu qaadanayno dadka iyagii aad iyo aad baanu u diiwaan gelinnay waxaan isleenahay maanta haddii tiro koob la qaado waxaan 20 qof ahayn baa laga helayaa inaad diiwaan gashanayn baanu isleeyahay maanta haddii ilaahay ka dhigo dad badan iyo dad badan iska diiwaan geliyaan waxa noo sharafa maanta annagoo ah musharaxii golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland 2021 inaanu dad badan ka diiwaan gelinay muddada ay socotayna aanu kala hadhin waxa noo sharafa in degmadu si wanaagsan oo qurux badan dadka imanayay xuduudaha ka imanayay u soo dhaweynaysay u hurayay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro inuu ku soo dhawaado degmadii Xaaji Saalax oo halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cirro oo aan leenahay ku soo dhawow gudoomiye gobolka iyo degmada Xaaji Saalax waa degmada oo aad ogtahay degmadan waa degmo ballaaran degmadan waa degmada anuguna ka sharaxnay walaa wakiilada ayaan ahay waxaan kugu soo dhaweynaa gudoomiye degmadii ragga ay Xaaji Saalax ayaa kugu soo dhaweynaa ku soo dhawow ana ku hadlayaa afka musharaxiinta golaha deegaanka degmada Burco waxaan ku soo dhaweynaa gudoomiye degmada Xaj Saalax waxaan halkan kaga sheegayaa Xaj Saalax inaan diiwaan gelinay dad aad u tiro badan anagoo isla taaga waxa weeye sanadkii hore doorashada ka leeyahay sanadkan ururiyay gudoomiyaha ku mushaarayso hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaji Xasan iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa iyaguna taageerayaasha uga mahad celiyay soo dhaweeyay waxaan idin leenahay sharafta anagu soo dhaweysay baanu ku faraxsanahay sidaa u timaadeen maanta codka u diyaarisayna waa sidii horeba ugu codayseen iyo si lamid ah ayaa maanta u timaadeen dhammaan dadka halkan ugu soo dhaweeyay Xaj Saalax salaadiinta iyo cuqaashii odayaasha waa mahadsantihiin dhalinyarada iyo waayeelkii haweenka dhammaantii waa mahadsantihiin sharaf bay noo tahay runtiisa aad noo maamusteen noo soo dhaweyseen haddii alla ka dhigo waxaan u soconay inaannu indhaindhaynta iyo eegista iyo dhiirigelinta arrimaha waxa weeye kaadharka iyo diiwaangelinta sida kaadharka loo qaadanayo marka waxaanu leenahay haddii aad dadaashay si odayaashu sheegeen oo aad dadaashayna waa fiicantihiin haddii wax idinka dhiban yihiinna dhammaystira aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in dadka intan tiradiisu leeg tahay iyadoo weliba cadceeddu sii dhacayso aan kula kulmo degmada Xaaji Saalax runtii dhiirigelin weyn bayna siisay dadka hadka tuban iyo dadka kuyiga ku jira markaanu eegnay iyo afartii cishe horena intaas in leeguma filaya inay hawshu ay ahayd marka tacabka badan iyo dadaalka badan waa idinka mahadnaqaynaa maanta ujeeddadaydu aniga shakhsiyan laba wax bay haydo inaan goobtana xogagaal u noqdo iyo sida dadku isu diiwaangeliyey talabaadna waxay ahayd in Xaaji Saalax ii ducayso intaasi kadib gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani waxa uu kormeeray goobaha diiwaangelinta ee degmada Xaj Saalax ay ka socotay waa Cabdirasaaq Cabdilaahi Sheekhadan Cabdirasaaq Koronto telefishinka caalamiga ee SAB degmada Xaj Saalax ee gobolka Daarmareed.